waxa ay sii socotaba hadda waxaa la joogaa adduunyo madaxa ku soconaysa. waa adduunyo madaxa ku soconaysa oo itus oo itaabsii ah. isaga oo aan meelna qabsan gidaar iyo qof ku tiirsanayn ayuu inta lugaha kor u taagtay madaxa ku fuulaya jaranjar dheer oo kuwa dabaqyada lagu fuulo ah. waxa uu halkaasi kor ugu socday ilaa iyo 36 cagood oo jaranjarta ah, taasi oo uu ku jabiyey rikoodh hor leh oo dhinaca madax ku socoshada ah. sida raha oo kale ayuu u boodarablaynayaa isaga oo aan dhanna u ciirayn oo aan culayska miisaankiisu ka lumin isuna dheelitiran. ninkan markii aad muuqaalkiisa aad aragto waxaad soo xusuusan doontaa hees uu horay u qaaday fanaankii kooxda iftin ee Bashiir Cali Xuseen, taasi oo midhaheedu ay ka mid ahaayeen midigay bidixi ma ka maarantaa, madaxow majaha ma ka maarantaa. maantana waxaanu joognaa iyadoo uu madaxii majihii ka maarmay. dadkii horena marka ay adduunyada ay ka dayrinayaan waxa ay oran jireen waa adduun madaxa ku soconaya. maantana wataa la arkayo iyadoo si dhab ah madaxa loogu soconayo. waxay ahayd munaasabad si toos ah iyo si fogaan arag ahba loo daawanayay. waxaa soo xaadiray oo kulanka qabanqaabiyey hay-adda Genius World Records, iyada oo horay u sii ogeyd in uu ninku mucjiso hor leh uu dhigi doono maadaama uu horay buugga uu ugu jiray. waa dabshidkii hore oo uu madaxa kor ugu socday jaranjarada ilaa iyo 34 cagood, laakiin markan isla isaga ayaa jebiyey rikoodhkiisii hore isla markaana sameeyey mid hor leh. waa markii uu gaarsiiyey ilaa iyo 36 tilaabo oo dhinaca sallaanka ah. gaari faras aad u sharaxan ayaa lagu galbiyey isaga oo mar kale la guddoonsiiyey shahaadada ah ninka 36 tilaabo oo jaranjaro ah madaxiisa kor ugu fuulay isaga oo aan xitaa gacmihiisa kaalmo uga baahan. ninku waa Ling Long Long oo ka yimid gobolka Henan ee dalka Shiinaha. Master Lee waxa uu hadda ka hor waa sanadkii 2012 tartankan la mid ah la galay nin kale oo isna Chinese oo lagu magacaabo Xiong Xinglong. labaduba ma kala dhicin oo waa markii ay sameeyeen madax ku socosho jaranjar lagu korayo oo dhan 34 tallaabo. halka Lee uu markan banaystay kan ugu badan ee sidaasi sameeyey ka gadaal markii uu gaarsiiyey 36 jeer. waxa uu ahaa kulan uu soo agaasimay telefishinka CCTV ee dalka Shiinaha. waa nin soo kufaakacay goor sii horeysayna waxa uu isku dayay in uu meesha uu ka saaro oo uu jabiyo rikoodhka caynkaas ah, kaasi oo uu horay u haystay nin Talyaani ah oo lagu magacaabo Lodey. waa laga diiday in Master Lee la siiyo koobka maxaa wacay daqiiqadii ugu dambeysay ayuu jirkiisa ku taabtay jaranjarada halkii uu madaxiisa oo qura uu ku taaban lahaa. waa taalantii ay dad naadir ah ay la soo baxeen ee ha u malayn in uu kan yahay nooc ka mid ah isboortiga oo soo baxay Britana madaxa ha ku soconin. dad badan ayaa marka ay muuqaalkan ay arkaan moodaya wax sahal ah oo istijaabin doona. waxaanse leeyahay oo ugu digayaa dadkaasi inaysan naftooda qilqil gelin, waayo madaxa iyo qoortaba ma aha meelo laga kaftamo ee sidii maskii madaxa adigu ha iska dilin oo adduunka ha ka hoyaadin. waxaa macquul ah in godollo aad sii noolaan doontaa. dhinaca Soomaalida marka aanu eegno, hebel waa nin madaxa ku socda waa cay ama habaar oo waxaa loo qarinaya waa u waalan yahay. balse ninkan ma waalna ee ogow xisaabtana ku darso. shuruudaha tartankan ayaa ah inaadan meelna taaban inta aad madaxa aad ku soconayso iyo weliba inaanay nasasho jirin oo lagaa rabo in aad dhinaca kale uga baxdo si xiriir ah. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula sii wadaagaan, halkaasina ay wax uga bartaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad baad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.